بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barnaamijkan kooban waxaanu ku baran doonaa sidaan u tukan lahayn salaatu duxa ama salaada barqada salaatu duxa waa sunno la adkeeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam waa tukaday asxaabtiisana waa u dardaarmay abu hureyra wuxuu leeyahay awsaanii khaliilii bitalaatin laa adacuuhunna xataa amuuta saaxiibkay wuxuu i dardaarmay waa rasuulkay saddex aanan ka teginin ilaa aan ka dhinto saddexdaas waxaa ka mid ahaa salaatu duxa nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiis kale wuxuu ku leeyahay man salla alghadaata fi جماعة qofka salaad subax jamaaca ku tukada ثuma qacda yadkuru allaha xataa tatlucu shams deetana fadhiista isagoo ilaahay subxaanahu watacaala xusay ilaa qoraxda uga soo baxdo ثuma sallaa rakcatayni deetana tukada laba ragcadood kaanat lahu ka ajri xajatin wa cumratin taamatin wuxuu leeyahay ajirka sida qof xajiyey oo cumraystay oo buuxa ayuu nabiga sala allahu calayhi wasalam leeyahay allahu akbar xadiis kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay walaalayaal qofka bini'aadanka marka qofka muslimka ah markuu waa beriisto waxaa xubnihiisa waajib ku ahaatay sadaqadaasna waxaa uga filnaanaysa subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ama wanaag uu faro ama xumaan uu reebo laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda waxaasoo dhan waxaa uga filan laba ragcadood oo uu tukado allahu akbar uu salaada duxaa tukado ayaa waxay uga filan tahay ajirkaas iyo mataqaana uga filan inuu sadaqadaas guto sidaad ogtihiin qofka bini'aadanka xubnihiisa waxay ka kooban yihiin 360 xubnood ayaa la sheegay inay ka kooban yihiin 360 xubnood oo qofka muslimka mar subax kasta waajib waxa ku ah sadaqadaasna waxaa uga filan laba ragcadood ilaahay subxaanahu watacaala uu tukado haddaba su-aasha isweydiinta le waxay tahay waqtiga salaatu duxa waa goorma waqtiga salaada duxa wuxuu bilowdaa marka ay qoraxda kor usoo baxdo waxaana ugu fadli badan waqtiga ay qoraxda aada u kulushahay dadka ku nool dhulka qaboobaha ah ee qoraxda aan la arkin ama xilliga winterka waxa ayakay ku xisaabtamayaan jadwalka ay ku xisaabtamayaan waxay fiirinayaan xilliga qoraxda soo baxdo xilligaas ayay tukanayaan fursadaasna ha laga faa'iidaysto haddaba waa meeqa ragcadood ayaa la tukadaa salaatu duxa waxaa ugu yar laba ragcadood waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tukaday 4 iyo in ka badan qofka maasha allah intuu ilaahay haleelsiiyo ayuu tukanayaa laakiin waxaa ugu yar waa laba ragcadood waxaana muhiim ah labadaas ragcadood inaad laba u tukatid jamaacana laguma tukado waxaana ugu fiican inuu qofka gurigiisa ku tukado maadaama ay tahay salaad barqo korna looma qaado ee hoos ayaa loo akhriyaa taasna xasuusta ku darso nabiga calayhi salaatu wasalaam qaabka uu tukan jirayna waxay ahayd marka uu allahu akbar yidhaahdo duca yar ayuu ku furfuran jiray ducadaa kadib wuxuu akhrin jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kadibna wuxuu akhrin jiray washamsi waduxaaha wuu rukuuci jiray wuu sujuudi jiray wuu soo kici jiray alxamdu lilah ayuu akhrin jiray haddana waduxaa ayuu akhrin jiray taas macnaheeda ma ahan inaadan akhrin karin suurado kale waad akhrin kartaa laakiin sunnada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidaas ayay ahayd ilaahay subxaanahu watacaala ha ku naxariisto fariintan walaalaha sii gaarsii adigana ka faa'iidayso bini'aadan baa tahay waad gaabin kartaa laakiin mar walba naftaada xasuusi inaad salaatu duxa tukatid wassalaamu calaykum